weli ma dul istaagtay khariidada caalamka gaar ahaanna khariidada dalalka Carbeed ma isweydiisay haddii shalay ay jiri jirtay dawlad islaama oo midaysan maxaa ka dhigay maanta dalalka islaamka iyo kuwa Carbeedba kuwa u qaybsan tobaneeyo dawladood oo isbarbar yaacaya guluf iyo dagaal dhexdooda ahna aan ka baxayn si aad u ogaatid jawaabta su'aashan waxaad u baahan tahay inaad dib u yara milicsatid heshiiskii la oran jiray Sykes-Picot. Britain and France agreed a secret deal for dividing the Ottoman Empire. heshiis laba nin oo diblomaasiyiin ahaa ay inta qalin qaateen ugu sameeyeen xayndaab iyo xuduud dalalkii Carbeed ee hoostagi jiray saldanadii Cismaaniyiinta iyaga oo u kala qaybsaday sidii ay rabeen. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa heshiiskii Sykes-Picot ee udubdhexaadka uu ahaa curashada dalalka Carbeed iyo Islaam ee maanta jira. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. markii saldanadii Cismaaniyiinta oo ay hoos imaanayeen ummadaha Islaamka intii ka madax bannaanayd gumaystayaashii reer Yurub ay go'aansatay inay dagaalkii koobaad ee adduunka ka qayb gasho weliba ay la safato dhinaca isbahaysigii la oran jiray quwadihii dhexe oo uu Jarmalku hogaaminayay kana soo horjeesato Ingiriiska ayuu khaliifkii Islaamku ku dhawaaqay in dagaalku yahay jihaad u dhexeeya muslimiinta adduunka oo dhan iyo gaalada uu horkacayo Ingiriisku. balse gumaystaha Ingiriiska oo ka cabsaday inay ku kacaan oo ay ka hor yimaadaan muslimiintii ku noolayd waddamadii uu gumaysanayay xilligaasi sida Masar, Yaman iyo Hindiya ayaa doonay oo ku fekeray khiyaamo uu kaga hortagi karo jihaadkaasi u iclaamiyey khaliifkii muslimiinta ee dawladdii Cismaaniyiinta xilligaasi hogaaminayay. tabtii iyo xeshii ugu wanaagsanayd ee uu helay si uu khatartaasi uga hortagana waxay noqotay in dunida Islaamka iyaga la isku jabiyo oo Carabta laga horkeeno Turkidii Cismaaniyiinta hoggaanka u haysay iyada oo la adeegsanayo xeelado, dhagar iyo khiyaanooyin isku dhafana loona marayo oo dhagarahaasi lagu fushanayo wadaad la oran jiray Shariif Xuseen oo imaam ka ahaa masaajidka Xaramka. wadaadkan oo isla waqtigaasi loo magacaabay imaamnimada masaajidka ayaa sheeganayay inuu yahay Shariif qabiil ahaanna uu reer Banu Hashim ka soo jeedo oo uu ku abtirsado Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ingiriiska ayaa isagoo ka duulaya xushmadda ummadda Islaamku u hayso Xaramka iyo weliba dadka loo yaqaano ashraafta wadaadkaasi u doortay inuu u adeegsado kala qaybinta Islaamka. isla markiiba dawladda Ingiriisku waxay u dirtay magaalada barakaysan ee Maka askarigii Welshka ahaa ee la oran jiray Edward Thomas Lawrence oo markii dambena ku caanbaxay naanaysta ah The Lawrence of Arabia ama Lawrencegii Carabta si uu wadaadkaasi u laalusho ugana dhaadhiciyo inuu ummadda Islaamka ah u fadwoodo oo uu u sheego in dagaalku uusan ahayn jihaad u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada ee uu yahay dagaal muslimka iyo gaaladuba ee labada dhinac ee dagaalamaya ay ku kala jiraan. heshiis iyo wadahadal kadib wadaadkii uu ku qancay doonistii Ingiriiska iyo inuu jeediyo fadwadii uu ka dalbaday Shariif Xuseen markii uu ku dhawaaqay inuusan dagaalku ahayn jihaad ee uu yahay dagaal ay boqortooyada Cismaaniyiintu danteeda oo keliya ay ka dhex aragtay isaga. waxaynu u jeednaa Shariif Xuseen iyo dawladdii Cismaaniyiintu way iska hor yimaadeen. weliba arrinta kale ee sii kala fogeysay labada daraf ayaa ahayd in Shariif Xuseen uu Ingiriisku ka dhaadhiciyey in isagu uu yahay imaamka Carabta oo dhan. Carab iyo Ingiriiskuna ay wada leeyihiin cadow guud oo la yiraahdo Cismaaniyiinta. waxaa lagu shubay wadaadka in dawladda Cismaaniyiinta ee Turkigu ay cadow u tahay Carabta iyo Ingiriiskaba. waxaa laga gaday in haddii dagaalka isaga oo hogaaminaya Carabtu ay ka galaan dhinaca Ingiriiska oo ay la dagaalamaan Cismaaniyiinta uu Ingiriisku ka taageeri doono dhinaca tababarka ciidanka, hubaynta iyo dhaqaalahaba. Carabtuna ay ka xoroobi doonto Turkida. isaguna waa Shariif Xuseen uu boqor ka noqon doono dhulalka Carabta oo dhan. Ingiriiska dantiisu waxay ahayd oo keliya inuu isku jabiyo Islaamka oo wax dan ah haba yaraatee kama uusan lahayn boqortooyadii iyo boqornimadii uu u ballan qaaday Shariif Xuseen oo been afgobaadsi iyo ku daneysasho unbay ka ahayd.
markii dantii uu lahaa uu ka gaarayna isagii ayuuba ku soo jeestay oo uu meel cidlo ah kaga dhaqaaqay sidaan ku arki doonno muuqaalkan dhexdiisa. ninkii la oran jiray Lawrencegii Carbeed wuxuu kala dhex baxay wiilashii Shariif Xuseen oo 3 ahaa wiil lagu magacaabi jiray Faysal si uu u hogaamiyo dagaalka Carabta ee laga soo horjeedo dawladdii Cismaaniyiinta ee uu fadhigeedu u ahaa Turkiga. kadib markii ay mid ula shireen odayaal qabiiladkii Carabta ahaa ee dhulkaasi deganaana, Lawrence iyo Faysal waxay ku guuleysteen inay soo abaabulaan jabhad ay ku wada jiraan qabiilada Carabta ee deegaanadaasi dega, iyadoona sidoo kale lagu dagaalgelinayo caqliyadda ah inay Turkiga ka xoroobaan. waxaa sidoo kale loo ballan qaaday ciidamadii dagaalka ka qaybgelayay maal iyo hanti adduunba, iyada oo loo sheegay ciidamadii Carabta ahaa in qof walba hantida iyo dahabka lagu abaalmarinayo ay noqon doonto inta qof ee Turki ah ee uu dilo. dhinaca kale, Faransiiska oo ay Ingiriiska isku xulafo ahaayeen ayaa isagu ka biyadiiday in Ingiriisku uu tababar ciidan iyo hubba uu siiyo jabhad Carbeed oo sidoo kale Muslim ah, isagoo ka cabsi qabay inay iyaga kula soo jeestaan hubkaasi iyo tababarkaasiba. hase ahaatee Ingiriiska ayaa isagu ku adkaystay qorshihii uu watay. Faransiiskuna markii uu arkay in khiyaamada Ingiriisku ay shaqaynayso ayuu ka dalbaday Ingiriiska maadaama ay dagaalka ku wada jireen inuu qorshahan ku soo biiro ayna qaybsadaan dhulalka Carabta marka dawladda Cismaaniyiinta gacantooda laga bixiyo. bartamihii dagaalkii koowaad ee adduunka bilowgii sanadkii 1916 labadii wasiir ee arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo Faransiiska laguna kala magacaabi jiray Mark Sykes iyo George Biko ayaa kala saxiixday heshiiskii xilligaasi Carabta lagu kala qaybsaday. heshiiskan ayaa bilowgii hore loo bixiyey heshiiskii Qaahira ee sirta ahaa, laakiin markii ay u soo wareegeen magaalada Petersburg ee ku taala Ruushka ayaa heshiiska waxa ku soo biiray daraf saddexaad oo ahaa Ruushka, waxaana loo bedelay magaca heshiiskaasi heshiiskii Sykes-Picot. khad ama diilin toosan oo ka bilaabmaysa magaalada Caka ee ku taala dalka Falastiin ilaa magaalada Kirkuk ee ku taala Ciraaq ayaa u kala qaybisay dalalkii Carbeed 2 qaybood. qaybta sare ee khadka ayaa gacanta loo geliyey Faransiiska, waxaana ku jiray dhulkan uu Faransiisku qaatay badanaa dhulkii ay ka koobneed Shaam oo kala ahaa Suuriya iyo Lubnaan, iyo dhul badan oo ka mid ah koonfurta Anadol oo ay maanta dhacaan gobollo ka mid ah Turkiga, halka Ingiriiskana la siiyey dhulkii ka hooseeyey khadka oo isna ka koobnaa bartamaha iyo koonfurta Ciraaq, bariga Jordan ama Urdun, dekadaha Caka iyo Xayfa oo maanta gacanta ugu jirta gumaystaha Israa'iil. Falastiin waxaa gacanta loo geliyey maamul dawliya, halka Ruushkana la siiyey gobolladii ay degi jireen Armeeniyiintu ee ku yaalay Turkiga. Carabta oo ahaa kuwa dhulkooda la kala qaybsanayeyna waxaa loo gartay in hal dawlad oo midaysan looga dhiso dhulkan la kala qaybsaday ee ay kala qaybsadeen Ingiriiska iyo Faransiisku, laakiin waxaa shardi looga dhigay in Faransiiska iyo Ingiriisku ay ku yeeshaan awoodda maamul ee ugu badan. dagaalkii koowaad oo weli socda, Carabtiina kaga jirto dhinaca Ingiriiska, ayaa 2 bishii 9 sanadkii 1917 wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ee xilligaasi James Balfour uu ku dhawaaqay in dawladda Ingiriisku ay taageerayso in Yahuudda adduunka ku kala firirsan dhul u gaar ah laga siiyo dalka Falastiin. baaqaasna waxaa loo yaqaanaa baaqii ama ballanqaadkii Balfour. wuxuu socdo dagaalku, saldanadii Cismaaniyiinta ayaa laga qabsaday dhulalkii Carabta oo dhan sida dhulkii loo yaqaanay Xijaas, haatana loo yaqaano boqortooyada Sacuudiga, dhulkii Shaam oo ka koobnaa Suuriya, Falastiin, Urdun iyo Lubnaan, iyo sidoo kale dalalka Ciraaq iyo Kuwait. kadib markii sidii aynu soo sheegnay Carabta laga hor keenay oo loo adeegsaday inay la dagaalamaan Cismaaniyiinta, Ingiriisku markii uu ku guuleystay dagaalka wuxuu fuliyey heshiisyadii uu la galay Faransiiska iyo Yahuudda, laakiin waxba kama soo qaadin kii uu la galay Shariifkii Maka. sidaasi ayaana dhulalkii Carabta ee Shariif Xuseen loo ballan qaaday inuu boqor ka noqon doono ay u kala qaybsadeen Faransiiska iyo Ingiriisku. dhulalkii Carabta ee Ingiriiska iyo Faransiisku ay qaybsadeen waxay ka baliliqaysteen hanti aan xisaab lahayn oo isugu jirta dahab, farshaxan iyo weliba aqoon iyo taariikh qoto dheer oo ay ummadda Islaamku lahayd muhiimad gaarana u lahaa. baliliqadan
waxaa laga yaabaa inaad u malayso daawade inay tahay tii ugu weynayd uguna xumayd ee ay xilligaasi geysteen Ingiriiska iyo Faransiisku, balse baliliqada ugu xun ee ilaa maanta ay shucubta Islaamku ka soo kaban la'dahay ee ay geysteen Ingiriiska iyo Faransiisku ayaa ahayd tii ay ku qaateen dhulka barakaysan ee Qudus uguna gacan geliyeen Yahuudda, gaar ahaanna Ingiriisku. Falastiin oo ka mid ahayd dalalkii Carbeed ee laga qabsaday dowladdii Cismaaniyiinta ayaa la geliyey wax lagu magacaabay xaalad xukun gaar ah oo dowladda Ingiriisku ay si gaar ah ugu maamulayso iyada oo kaashanaysa oggolaanshiyaha Qaramada Midoobay, waxayna dowladda Ingiriisku ay markiiba bilowday inay Falastiin ku soo daadgurayso Yahuuddii adduunka ku kala firiirsanayd, gaar ahaanna kuwii Yurubta bari oo ka soo cararay dhibaatooyin halkaasi loogu geysan jiray. Yahuudda ayaa iyaguna markiiba bilaabay inay samaystaan ururo argagixiso ah oo si qarsoodi ah u hawlgala, shaqadooduna tahay inay argagax ku ridaan shacabka Carabta ah ee reer Falastiin si ay u barakiciyaan oo ay dhulkooda uga saaraan geeri iyo nololba. Sanadkii 1947 Qaramada Midoobay iyo Ingiriiskii wakiilka uu ahaaba waxay soo jeediyeen in dhulka reer Falastiin loo kala qaybiyo Carabta Falastiin iyo Yahuudi lagu soo daadgureynayay shalay. Markii ay Falastiiniyiintu diideen qaybintaasina sanadii 1948 ayaa la isaga dhex baxay Falastiiniyiintii oo muddo 30 sano ah qarax iyo qaxootinimo ku jiray, iyo Yahuuddii Sahyuuniyiinta ahayd ee adduunka laga soo ururiyey oo aqoon iyo dhaqaalaba lala garab istaagay. 14 bishii shanaad sanadkii 1948 ayay Yahuuddu ku dhawaaqeen in ay yihiin qaran madax bannaan oo la yiraahdo Israa'iil, halka Falastiiniyiintuna ay isla maalintaasi u aqoonsadeen maalintii hoogga iyo ba'a Falastiin ee luqadda Carabiga lagu yiraahdo Yawmun Nakba. Isku soo duuduubo, heshiiskii Sykes-Picot wuxuu ahaa khiyaano iyo dhagar loo maleegay muslimiintii xilligaasi, gaar ahaanna Carabta. Jabkii maalintaasi soo gaaray muslimiintana ilaa iyo maanta waa kuwo la dhutinaya. Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.